wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon ee janalka gunta wararka qodobada aan idin haynana waxaa kamid ah agaasimihii madaxtooyada maamulka Hirshabeelle oo al-shabaab isku dhiibay iyo al-shabaab oo muuqaal ka soo duubay Umar Finish oo amray in la joojiyo lacagaha la siiyo xildhibaanada iyo saraakiisha kale ee dawladda Axmed Madoobe oo shaaciyay in dawladda Soomaaliya ay wado qorsho ay ku shirqoolayso Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo kulan xasaasi ah la qaatay Macalin Maxamuud iyo Sheekh Shaakir xildhibaan Xuseen Iidow oo weerar afka ah ku qaaday xildhibaan Odawa kana hadlay habka uu isku sharaxay xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo go'aan cusub ka soo saaray go'aanada ka soo baxaya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo xildhibaan Faarax Sheekh Abduqaadir oo dawladda Soomaaliya ku eedeeyay in ay wada qaldan u mareyso saxida doorashada Jubbaland intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada wararka ugu doorka roona markana waxaad ku soo dhawaataan iyagiyo faahfaahsan gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish ayaa amray in la joojiyo dhammaan lacagaha la siiyo mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya taas oo laga bixiyo qoondada gobolka Banaadir sida ay noo xaqiijiyeen ila wareejo ku dhow Umar Finish warqad uu soo saaray ayuu ku amray inaysan jirin qof la siin karo lacag ka baxda qasnada dawladda hoose ee Xamar kuwaas oo aan ka tirsanayn shaqaalaha gobolka Banaadir wixii laga bixinayana maamulka sare ee gobolka ay wada tashi ka yeelan doonaan sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Duqa Muqdisho Umar Finish ayaa amray in balan la'aan aysan jirin qof xafiiskiisa imaan kara waxa uu howlwadeennadiisa ku wargeliyay in xildhibaanada wasiirada iyo saraakiisha kale ee dawladda in ay ku yimaadaan balan iyo ka warqab balse aysan jiri doonin in ay xafiiska iska yimaadaan dadka aan heli doonin lacagaha gobolka Banaadir ee uu saameynayo amarka gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ayaa waxaa kamid ah xildhibaano iyo saraakiil ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xarumo kale kuwaas oo lacago ka qaadan jiray xarunta dawladda hoose ee Xamar sidoo kale waxaa lacagta ugu badan la siin jiray dadka dawladda aan xilalka ka haynin ee taageerayaasha u ah nabad iyo nolol kuwaas oo degan hoteelada magaalada Muqdisho lacagna ku qaata kaliya in ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ka difaacaan dadka mucaaradaya iyo inay ka taageeraan baraha bulshada al-shabaab ayaa sheegtay inuu isku soo dhiibay agaasimihii hore ee madaxtooyada maamulka Hirshabeelle Xasan Cumar Maxamed Xasan Mahdi idaacadda al-shabaab ee Andalus ayaa baahisay sawirada iyo codka Xasan Mahdi oo dhowr bilood ka hor xilka laga qaaday kaas oo uu sheegay inuu isku dhiibay maamulka al-shabaab ee gobolka Hiiraan Xasan Mahdi ayaa wareysigii uu siiyay idaacadda al-shabaab ee Andalus waxa uu ku sheegay in muddo 3 bilood uu agaasimo madaxtooye ka ahaa madaxtooyada maamulka Hirshabeelle ee uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdi Waare waxa uu sidoo kale wareysigiisa ku sheegay inuu isaga baxay siyaasadda dawladda federaalka ee Soomaaliya kuna biiray al-shabaab mid ku dhisan shisheeye la shaqeynta ee u dhaqmaan maamulada ka jira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ma ahan kuwa aan u dool qaadan karo sidaas darteed ayaan ugu biiray al-shabaab ayuu yiri Xasan Mahdi agaasimihii hore ee madaxtooyada maamulka Hirshabeelle Xasan Mahdi ayaa sheegay in al-shabaab aysan soo wicin una sheegin inuu isa soo dhiibo balse uu isagu doortay in uu isa soo dhiibo kuna biiro al-shabaab isla markaana uu u sheegay inuu ka toobad keenay howlihii uu ka hayay dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan maamulka Hirshabeelle markii cashir diini ah la ii siiyay oo quraanka la ii tusay xadiiska la ii tusay iyadoo aan la ii qasbin ayaa si rasmi ah ugu biiray al-shabaab kana toobad keenay shaqooyinkii hore ayuu yiri Xasan Mahdi oo ah agaasimihii hore ee madaxtooyada maamulka Hirshabeelle arintan ayaa la yaab iyo amaka ku noqotay maamulka Hirshabeelle maadaama nin xilkaas ka soo qabtay maamulka uu hadda go'aansaday inuu ku biiro al-shabaab sidoo kale dadka Soomaaliyeed ayaa arintan ka argagaxay sidoo kalena waxay ku noqotay la yaab maadaama Xasan Mahdi uu horay xil sare uga hayay madaxtooyada maamulka Hirshabeelle madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka walaacsan in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay wado qorshe ballaaran oo ay ku qasbayso Jubbaland xilli ay sare u kacday xiisadda dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland agaasimihii hore ee mashruuca geeska Afrika ee hay'adda xasaradaha caalamiga ah ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in Axmed Madoobe uu aad uga carooday xariga dawladda federaalka ee Soomaaliya ee u geysatay wasiirkiisa amniga Cabdirashiid Janan
Rashiid Cabdi ayaa sidoo kale sheegay in wasiir janan ay shirqooleen ciidamada Itoobiya isla markaana ay u gacan geliyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya. Axmed Madoobe arintaas uu aad ugu walwalsan yahay maadaama ay suurtagal tahay in Axmed Madoobe mar kale loo gacan geliyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa sheegay in dhawaan uu u ambabixi doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya isagoo arintaas aad ugu walaacsan. Waxa uu sheegay in haddii uu maro magaalada Muqdisho in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xabsiga dhigi doonto. Waxa uu dowladda Kenya ka codsaday in safarkiisa ay kala shaqeyso sidoo kalena ay u soo dirto haddii ay macquul tahay diyaarad gaar ah. Dad badan oo siyaasiyiin iyo khubaro ayaa aaminsan in Axmed Madoobe dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xabsiga dhigi doonto haddii uu transit ku soo maro garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ujeedka ugu weyn ee Axmed Madoobe loo xirayo ayaa ah in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay Jubbaland geysato mas'uul iyadu daacad u ah oo danaheeda ay ku fuliso. wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliya aana xildhibaan ka tirsan golaha shacabka xildhibaan Faarax Sheekh Cabduqaadir ayaa ka hadlay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo iyo diidmada dowladda federaalka ee Soomaaliya ee doorashadaasi. xildhibaan Faarax ayaa waxa uu sheegay in dhammaan ragga sheeganaya inay yihiin madaxweynayaasha Jubbaland in ay isku mowqif ahaayeen sanadkii 2013 xilligaas oo uu isagu wakiil uga ahaa dowladda Soomaaliya sidii loo dhisi lahaa maamulka hana qaada deegaanada Jubbaland. Faarax Sheekh Cabduqaadir ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya u soo jeediyay inay kala saarto khilaafka kala dhaxeeya hoggaanka sare ee maamulka Jubbaland iyo doorashadii 22kii bishii hore ka dhacday magaalada Kismaayo taas oo uu ku soo baxay Axmed Madoobe. Waxa uu sheegay in doorashadaas ay martay hanaankii loogu talagalay. khilaafka ka dhaxeeya dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya waa ka horeeyay doorashada. meelo kale oo aan doorashada ahayn ayaa la isku khilaafay. waxaana xasuusanaa in dhowr bilood ka hor in lagu soo kala tagay shir ay magaalada Garowe ku yeesheen madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. waa Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyre. shirkaas waa lagu soo kala tagay. arin doorasho la xiriirta ma ahan khilaafka dowladda kala dhaxeeya Jubbaland ayuu yiri xildhibaanku. xildhibaan Faarax Sheekh Cabduqaadir ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday arinta dowladda Kenya ee ah taageerada ay u muujisay Axmed Madoobe. waxa uu sheegay in Kenya aysan wax aqoonsi gaar ah siin karin maamulka Jubbaland balse kaliya ay taageeri karto. Axmed Madoobe ayuu ku amaanay inuu samarnaba Kenya kala safan muranka dhinaca badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya. waxa uu sheegay in Kenya marnaba uusan Axmed Madoobe ku garabsiinin in ay boobto badda Soomaaliya. taas ayaana ku cadeynaysa mowqifkiisa ku aadan qaranka Soomaaliya ayuu yiri xildhibaan Faarax Sheekh Cabduqaadir. Axmed Madoobe waxyaabaha aan aad uga amaanayo waxaa ka mid ah in mushkiladaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhex taagan marnaba uusan raali ka ahayn sidoo kalena gorgortan uusan ka gali doonin in uu la safto dowladda Kenya. waxa uu sheegay in marnaba aysan ka suurtoobin Axmed Madoobe in uu Kenya la safto. ugu dambeyn xildhibaanku waxa uu dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu digay inay doorashadii baarlamaanku codeeyeen ee ku soo baxay Axmed Madoobe u hakiso in qof iyadu ay rabtay inuusan ku soo bixin doorashadaasi taasoo banaanka u soo saaraysa walaaca maamulka Axmed Madoobe uu ka qabo faragelinta dowladda federaalka ee Soomaaliya. dhanka kalena kulan ay magaalada Kismaayo ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay kaga hadleen go'aankii dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadanaa diyaaradaha aada ama ka yimaada magaalada Kismaayo in marka hore ay soo maraan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. xildhibaanada ayaa kulankooda waxay ka sheegeen in dadka rayidka ah ay dhibaato ka soo gaartay xayiraadda diyaaradaha Kismaayo waxayna dowladda federaalka ee Soomaaliya ka dalbadeen inay xayiraadda ka qaado duulimaadyada diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. xildhibaanadan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in dhibaatooyinka ugu daran ay soo gaarayso dadka rayidka ah sida dadka xanuunsan ee iyagu raba in si dhaqsi ah loo geeyo isbitaalada xamar haddii culeys la saarana dowladda federaalka ee Soomaaliya arintaas ay ku ceeboobayso. xildhibaanada ayaa soo hadal qaaday xariga dowladda federaalka ee Soomaaliya u geysatay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan waxayna dowladda ka dalbadeen in muwaadinkaas xasaanada leh in xuriyadiisa si degdeg ah loo siiyo.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada Dhuusamareeb waxa uu kula kulmay gudoomiyaha guud ee ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca Macalin Maxamuud iyo sidoo kale madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. kulankan oo ahaa mid albaabada u xirnaa ayaa aad looga hadlay arrimaha dhismaha maamulka Galmudug iyo sidii madmadowga soo kala dhaxgalay Ahlus Sunna iyo dawladda meesha looga saari lahaa. wararka qaar ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu ka dalbaday hoggaanka sare ee Ahlus Sunna inay ka qayb qaataan dadaalada dib loogu dhisayo Galmudug loo dhan yahay iyo in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay kala shaqeeyaan qabsoomida shirka dib u heshiisiinta Galmudug. hoggaanka Ahlus Sunna ayaa dhawaan sheegay inuu burburay heshiiskii dawladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana dawladda ay ugu baxday balamo ay la gashay. hayeeshee wasiirka arrimaha gudaha oo isaguna markaas la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Ahlus Sunna iyadu ay ka baxday balanka dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan burburin heshiiskaasi. ugu dambeyn xildhibaan Xuseen Qaasim Iidow oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee laga soo doortay deegaanada Galmudug ayaa waxa uu sheegay in mucaarad iyo muxaafad ay xilligan isku raacsan yihiin in la dhiso Galmudug loo dhan yahay saldhigeeduna uu noqonayo magaalada Dhuusamareeb. qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu si maldahan su'aal iyo naqdinba ku keenay musharaxnimada xilka madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdiraxmaan Odawaa kaasoo maalin ka hor isku sharaxay magaalada Muqdisho. wuxuu aad u dhaliilay in xilligan Odawaa uu isku soo taago hoggaanka sare ee Galmudug. haddaba Galmudugta cusub ee la dhisayo ma habboon tahay in loo doorto ama loo dhiibo inuu hogaamiyo injineerkii dhisay Galmudugtii kala qaybsaneed ee Cadaado sanadkii 2015 yacni qabyo qofkeeda dhameystiro miyay sheekadu ayuu yiri xildhibaan Xuseen Iidow. wuxuuna sidoo kale Odawaa kula taliyay inuu ka tanaasulo hankiisa musharaxnimada. guud ahaan daawadayaal halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wararkii aad ka daawanayseen channelkan. daawad haddii aad ku cusub tahay channelka waxaad saartaa subscribe qaybta hoose ee channelka waxaad inoogu reebtaa aragtidaada.